Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Francis Media. Daadadka waa kuwa halis ah iyadoona gedgedisa nolosha malaayiin qof. Waxa kaliya oo looga badbaadi karo waa in laga fogaadaa meelaha biyo-xireennada. Haddaba waxaan idinla wadaagi doonaa 3 ka mid ah biyo-xireennada ugu halista badan. Hadduu ku cusub yahay channelkan Francis, subscribe si uu kuu soo gaaro muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. Biyo-xireenka Mosul. Biyo-xireenkan waxa uu ku yaalaa waddanka Ciraaq, gaar ahaan magaalada Mosul, waana kuwa ugu halista badan ugu waaweyn dunida. Waxa uuna koronto siiyaa 1.7 milyan oo qof oo ku nool magaalada Mosul. Waana mid ka mid ah biyo-xireennada ugu khatarsan Bariga Dhexe. Biyo-xireenka Mosul waxa uu sameeyay fatahaad, waxaana ku naf waayay 100,000 oo ku ag noolaa webiga agtiisa. Dadka kalena ay ku dhacday koronto iyo biyo la'aan. Webigan caasimadda Baghdad wuxuu u jiraa masaafo gaaban, iyadoona loo kala socdo waqti yar. Waana mid la furay sanadii 1986. Waxa uuna ahaa mid xilliyada qaar samayn jiray fatahaad, iyadoona la dhisay 20 jeer. Sanadii 2014 ayay sheegeen injineerada inay ku guuldareysteen biyo-xireenkan. Kadibna waxaa dhisay injineer khabiir ku ah biyo-xireennada u dhashay dalka Talyaaniga, waxa uuna ka dhigay mid nadiif ah, aan samaynin fatahaad. Isabella Light. Biyo-xireenkan waxa uu ku yaalaa USA, California, waana mid halistiisu ay badan tahay, isagoona sababa inay yimaadaan khubaro dhanka biyo-xireenka ah. Maxaa yeelay webigan fatahaadiisa soo laalaabatay noqotay mid sare u kacdo, waxaa sababay dhulgariir taabtay biyo-xireenka, burburiyay buundooyinkii. Marka si looga ilaaliyo khatarta kaga imaanaysa bulshada ku nool agagaarkiisa, waxa ay injineeradu ka shaqeynayaan horumarinta naqshadda loo dhisayo buundadan, isagoona loo sameeyay 2 biyo-xireen, wuxuuna hadafkoodu yahay inay kor uga qaadaan 5 mitir. Mashruucan lagu dhisayo biyo-xireenkan casriga ayaa lasoo gabagabeyn doonaa 2022. Haddii la dhiso, xitaa webigan waa mid khatartiisa ay sii jirayso ilaa xad. Three Gorges. Biyo-xireenkan waa midka ugu waaweyn dunida, sidoo kalena waa biyo-xireen ay ku taalo xarun koronto laga dhaliya, midda ugu weyn dunida, iyo dhisme noocan oo biyo-xireen ah kii ugu weynaa uu injineer dhisay abid. Mana ahan mashruucan Chinese-ka midaad aamini karto, xaddiga uu leeyahay waa mid aad u weyn. Mar walba biyo-xireenkan waa mid biyihiisu ay sii kordhayaan, halka biyaha uu tuurayana uu yahay 40 bilyan oo tan, kuwaasi oo ka sareeya dhulka 175 kiiloomitir. Waxaana laga dhaliyaa korontada laga isticmaalo waddanka China, waana waddanka dadkiisu uu gaarayo in ka badan 1.4 bilyan oo qof. Waxayna ku guuleysteen inay koontaroolaan webigan daadadkiisa, laakiin waxaa dhibanayaal ku noqday 350 milyan. Waana biyo-xireenka la furay sanado yar ka hor, waxa uuna dowladda China u keenay dhibaatooyin badan. Tusaale ahaan, markii la bilaabayay dhisitaanka biyo-xireenkan, waxaa ka barakacay 1.3 milyan oo qof magaalooyin aad u badan, kuwaasi oo gaarayay 13 magaalo oo ay daad qaadeen.